Take me by the hand, show me the way I can go. Take me by the hand, show me the way. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداشا قيمة قدرنت له واحد نو برتي مرول بنعيد سو gudbino barnaamijka salaamaha ciida ee magaalada Qaahira. haddana waxaan guud galeynaa barnaamijka salaamaha ciida oo aan ku bilaaweyno walaal magaca aadan nuuro maalime. walaalayaal halkan ka salaamaysan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتوا عليكم سلامي أمد المسلمين كدمانتيو أمد الصومالي ده جارهان dadka Soomaali ka nool ee salaamahay way balaha iid wanaagsan geek aan faraxsana anoo way baan ku salaamahay ummadda muslimiinka ummadda Soomaalida saaxiibayalkay qaraabaday waalidkay walaalogay dhammaan way baan kasta oo yaani muuqaalkay iyo aragay ka soo yaani hadalkay ka soo yaan ku salaamahay ولنا لها إيد فيل. أيوة عبد المطلب إبراهيم عمر وحن كسلام يا all my family وكلنا الدبادة الدنيا كعلى ده وحن كسلام يا أورون ويدي دغالية نظيف نور فارح وأنا دجع لهاي ورنانتي وحن كلو عن أتعسين يا ما أنت تعسيد يا بيجا أبي إبراهيم عمر سفرية يولي وحن سلام يا all my family ميل بيجوان إثيوبيا قاهرة UK يولي بسوماليا يولي بكينيا waxaan halkan kaloo ka salaamayaa saaxiibadeeda ku nool Qaahira gaar ahaan reer Bahlos waxaan kaloo ka salaamayaa ma xabiibteyda aan adduunka ugu jeclahay Ruun Axmed walaal halkan ka salaamaysaa waxaan meeshan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto iyo waxaa kaloo meeshan ka salaamayaa hooyaday oo joogto Soomaaliya iyo walaalkay oo jooga Australia iyo walaashay oo joogto Australia ayadana iyo waxaa kaloo meeshan ka salaamaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto salaam walaal magaca magacayga waa Umar Shariif walaal adiga fursadan aad ka faa'iideysanaysid ee barnaamijka salaamaha ciida ayaa halkan ka salaamaysaa waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka meel kasta ay joogaan khaasatan Soomaalida dunida dacaladeeda meel alla meesha ay joogaan ayaan halkan ka salaamayaa hooyadeyda Xabiiba Cabdi Ibraahim oo ku magac dheer Shariifo oo magaalada Muqdisho xaafadda Barmuud ay joogta ayaan halkan aan ka salaamayaa walaasheedii Bool Nuur Shimooy oo ku nool dalka Mareykanka macal caruurteeda macal seegeedii ayaan halkan ka salaamayaa anigoo oo ah walaalkeeda Umar Shariif oo halkan aan ka salaamayo ummadda Soomaali meel walba ay joogto ilaahay waxaan ugu baryaa bashbash barwaaqo inuu meel walba ay joogaan inuu ku siiyo dalkeena nabad Allah noogu dhigo sanadkan sanadkiisa waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu nabad bashbash barwaaqo saaxiibkii iyo markino saaxiibyaalkii reer Shaafireeska ya reer Nacnac kulli reer Saafi maxaa dhilay reer Saafi waxaan leeyahay ha guuleystaa ma sha Allah ya waa dad aad u dadaalayo weeye saaxiibkayga qaaliga ee my best friend oo Ingiriiska jooga Jibriil Maxamed Jibriil la dhahayna halkaan ayaan ka salaamayaa aniga waxaan soo salaamayaa aanu ku magac dheerahay magaalada Qaahira aniga dhalinyarta ay yaqaanaan jiilkiisa okay bismillaahir rahmaanir rahiim anigu ka faa'iideysanaya fursadan ciidan ay siiyaan shabakada warbaahinta Daynile iyo Axmed Cabde waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan u leeyahay ciid wanaagsan kullu aamin wa antum bikhair marka xigta waxaan salaan kala ilaab ah u dirayaa waalidiinteeda aan aad ku jeclahay oo kala jooga magaalada Muqdisho iyo magaalada Nairobi khaasatan waxaan salaamayaa hooyaday aan u jeclahay Carruur Maxamuud Bakar sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan walaalahay oo ku nool magaalada Nairobi dalka Kenya sidoo kale waxaan salaan qaas ah u dirayaa xaaskayga aan aad ku jeclahay oo Fadxi Maxamed Faarax oo ku nool magaalada London ee cariga dalka Ingiriisiga sidoo kale waxaan salaan kala ilaab ah u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan u leeyahay ciid wanaagsan kullu aamin wa antum bikhair bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxa ku sugan milkiilaha shabakada warbaahinta Daynile Axmed Shacali Kalay mudane Axmed Shacali Kalay adigu ka faa'iideysanaya barnaamijkan qaaliga ay ku siisay shabakada warbaahinta Daynile Axmed Cabde halkan ayaa ka salaamaysaa
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan ee dunida muslimka waxaan leeyahay ciideeda kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay isku keeno qulubta islaamka inuu islaamka mideeyo islaamka ka dhigo mid waaxida waxaan kaloo aan u tahniyeenayaa dhammaan intii taqaano saaxiibaday ah qaasatan Fati Fatah Abdi Ali Sheikh Maxamed كل قيارته ودن هويدي فاطمة iyo eedaday Faadimo Rooble kulli dhamaan waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan kulli caam oo antu biqeer ay walaal magacan Umar Abdullah Yaasiin ay Umar Abdullah Yaasiin maanta fursadan oo xamar cadda uu ku siiyay yaa halkan ka salaamaysa waxa ka salaamay dhamaan familiga dadweynaha Soomaaliyeed familiga kala ah eedaday Nasr Yaasiin iyo eedaday Safiya Yaasiin iyo adeerka Cabdirasaaq Yaasiin iyo Abi Abdullah Yaasiin iyo adeerka Maxamed Yaasiin iyo abtigay Maxamuud Bidaan iyo abtigay Maxamed abtigay Cabdiladiif iyo ayday Aisha iyo habrirtay Qoran iyo habrirtay Saadiyo iyo dhamaan dadweynaha Soomaaliyeed halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda waalidkay hooyaday Saada Xaashi walaalkay Cabdiraxiin Maxamed Farax walaashay Badriya Maxamed Farax waxa kale halkan ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda oo ku kala dhaqan dalka Malaysia Pakistan Saudi Arabia كل مجاعات هذا مسوي كوبي كرير دمانت هذا كل وسكرنا يعني وحي مجاعي موقعي قالنا دمانت هذا بني والسلام يا من ليه عيدا نقول عيدا عافماد قبش بشيء برواق إن شاء الله مجاعي آذن عبد الله وياه كم مجاع دير مالها بركة سنتور اوكي walaal aad fursadan xamar cadde oo ku sii ka faa'iideysanaysa halkan ka salaamaysa halkan waxa ka salaamaya gobolka Soomaaliya oo dhammaan salaamay marka hore waxaan leeyahay taqabbalallahu minna wa minkum bil a'maali saalihaat si gaar waxaan salaamaya gobolka Soomaaliya galbeed gaar ahaan degmada laga hido iimay bari yaan salaamaya waxa kale oo salaamaya xagga dalka waaye laakiin dadka waxaan salaamaya adeerkay Maxamed Xuseen iyo zawjadiisa wiilo iyo wiilkiisa Ayuub iyo labadiisa gabdhood oo ku nool dalka London Ingiriiska magaalada London Mustafa Shariif oo isna saaxiibkay oo jooga London man salaamaya waxa kale oo salaamaya qaraabada iyo ehliyadeyda iyo inta magacayga iyo minjahayga taqaanaan salaamaya waxaan salaamaya walaalahay oo ku nool Jigjiga waxaan gaar u salaamayaa xaafadda suuq Ableele si gaar oo salaamaya waxaan magaalada Qaahira salaamaya xaafadda Ardulwa saaxiibay badan joogo Axmed Askari Abshir asxaabteedu ma soo koobi karo kulligood baan salaamaya kulligoodna waxaan leeyahay kullu caam wa antum birajaa'i bisalaam magacayga waxaa yiraahdaa Ibrahim Saaq Malaaq oo ku nool wadanka Qaahira waxaan ka salaamayaa Aabay Saaq Malaaq hooyadeeda Faadimo Maxamed Axmed iyo dhammaan dhalinyarada Qaahira asxaabteeda iyo inta maqalka iyo muuqaalka taqaano iyo dhammaan shaqaalaha sharaftada TV-ga ayaan halkan ka salaamayaa waxaan leeyahay kullu sano waan taybin iyo khayr qaarna waa salaamo okay halka walaal magacayga waxa la yiraahdaa Mustafa Maxamed Abdullah insha Allah Djibouti ka yimid tacliin baan yimid ciidan maaragtay ciid mubarak baalana dadka walaaleena muslimiinta iyo dadka maaragtay muslimka maaragtay dhamaan meel wada joogan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ciidan maaragtay isaga nagu manaystay muslimkana ku manaystay waa farxad qaali ah maaragtay waa inaan ka faa'iideysano dadka walaaleena maaragtay kala tagay waa inaan soo kala isku dhexdhexaadino dhexdeena waa inaan maaragtay farxad iyo maaragtay nimcad maaragtay aan ku wada noolaan leeyahay maaragtay hambaliyo فاضل فهد أيام فاضل فهد يا هالكن سلامة ugu horeyn muslimiinta meel kasta ay joogaan marka xigta Soomaali weyn meel kasta ay joogto waxaan salaamayaa ehelkayga meel kasta ay joogaan saaxiibayaalkay meel kasta ay joogaan caruurtayda meel kasta ay joogaan dhammaan waxaan salaamayaa dadka reer Qaahiro oo dhan salaan qaali ah waxaan salaamayaa qolada wadata fiidiyowga salaamayaa salaan qaali ah عيد مبارك أن لا يهي عيد وناكسن عفية عافيمات الرحمن الرحيم مقعيق والصلاة بشرب وتعالى وحان هل كان كسلامة يا أمد الصوماليات أمد الإسلام كميل بأي جوكتو خاصة أمد الصوماليات وحان لا عيد وناكسن وحان كل كان كسلامة يا هويدا حليم نور فرح يا أبي بشرب وتعالى إذا ما صاحبي ميل بأي جوكان وحان لا كل عام وأنتم بخير meel baa joogtiin waa salaamantiin ciidan ciideeda waxaan Ilaahay idinka baryaa inuu idin gaarsiiyo waxaan kaloo halkan ka salaamayaa qaasatan dadka heer Qaahiro waa dhamaantiin waa wada salaamantiin waxaan leeyahay kul caam wa antum bikhair assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillahir rahmanir rahiim ugu horeyn magacaygu waxa waaye Sakriya Abdi Maxamuud oo Sakriya Fooy Cabdi lagu magacaabo maanta ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta adduunka meel kasta ay joogaan waxaan u duceynayaa
walaalaheen Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan geeyiga Soomaaliya halkan waxaan ka salaamayaa reer Food Cadde oo kala ah Duniya Food Cadde Samson Food Cadde Naciima Food Cadde Maxamed Food Cadde Cabdullaahi Food Cadde Deeqa Food Cadde Fardooso Food Cadde Maxamed Food Cadde Maxamuud Food Cadde Yaasmiin Food Cadde Xasan Food Cadde Jibriil Food Cadde Xuseen Food Cadde Aadan Food Cadde Muna Food Cadde Xaawo Food Cadde Felis Food Cadde Deeqa Food Cadde Fardooso Food Cadde iyo waxaan kaloo salaamayaa hooyada Aamina Jimcaale Cali Sow oo Soomaaliya joogto iyo waxaan salaamayaa Ubax Maxamed Maxamuud warsamo Maxamed Maxamuud Hani Maxamed Maxamuud iyo waxaan salaamayaa dhammaan walaalahay meel kasta ay joogaan saaxiibaday akhyaartay inta maqalkii muuqayga taqaan dhammaan waan salaamayaa waxaan si khaas ah u salaamayaa macallimiintayda adduunka meel kasta ay joogaan hadday ahaaleed kuwa dugsiga quraanka soo bari hadday ahaaleed kuwa iskuulka dhammaan waan salaamayaa assalaamu calaykum magacaygu waa Axmed Nuur Ibraahim Cabdi waxaan halkan ka salaamayaa ummadda muslimiinta caalamka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr waxaan kaloo halkan ka salaamayaa hooyaday Seenab Cismaan iyo walaalahay meel kasta ay joogaan iyo asxaabtayda iyo inta muuqayga taqaano dhan waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan u duceynayaa ummadda Soomaalida ee ku dhibaataysan wadanka Soomaaliya waxaan leeyahay in Ilaahay idin saqiro dhibkiina iska assalaamu calaykum kullu caam wa antum bikhayr ayaan leeyahay ummadda jamiican ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta joogaan khaas ahaan ilma Xaaji Ibraahim Sheekh Xuseen khaas ahaan reer Sheekh Xuseen iyo reer Sayyid Ibraahim iyo khaas ahaan ilma Xaaji Maxamed oo dhan habar cibaado Xaaji Caasho Xaaji Faadimo Xaaji Nimco Xaaji Cabdisalaam Herri all of them family oo dhan baan halka ka wada salaamayaa خاصة أرضيدا خاصة قاهرة وحكبرتها كل عام وأنتم بخير. وأنا حسن حسين على حسن كان علي قانون waxaan halkan taaniyad u gudbinayaa dhammaan dadka Muqdisho ku nool Ilaahay waxa aga baryayaa inuu dhibka naga qaado Soomaaliya inuu Ilaahay dhibka ka qaado Ilaahay ka baryayaa waxaan maaragtay halkan maanta uu salaan u gudbinayaa Xaaji Cumar Cali ee u gudbinayaa iyo xaaskiisa waxa uu gudbinayaa Xaawo Xaaji Cali waxa uu gudbinayaa Xaaji Sharmaan waxa uu gudbinayaa maaragtay Xamdi Maxamed Kadiye waxa uu gudbinayaa Aamina Kadiye waxa uu gudbinayaa reer Kadiye dhammaan ayaa u wada gudbinayaa waxaan u gudbinayaa قديجو شي عمر iyo walaal magaca Nasr Nuur Maxamed Nasr Nuur yaa halkan ka salaamay marka hore waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr marka xigta waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan halkan ka salaamayaa muslimiinta dhammaan meel walba ay joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr marka xigta waxaan halkan ka salaamayaa maamadayda qaaliga ee aad ka u jeclahay oo lagu magacaabo Bishaaro Salaad Xasan oo ku nool Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxaan leeyahay hooyo ciideeda kale ku gaar barbasho iyo barwaaqo kullu caam wa antum bikhayr halkan waxaan ka salaamayaa abtigayga qaaliga ee marna ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan magac laga maskiin maaha waxaan leeyahay abti ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr meel walba aad joogtana bashbash iyo barwaaqo ayaan ku rajeynayaa marka xigta halkan waxaan ka salaamayaa walaalayga qaaliga ee ay dhaleen hooyaday aabahay oo lagu magacaabo Xasan Nuur Xuseen Nuur Shucayb Nuur oo ku kala nool Soomaaliya iyo Kenya waxaan kaloo halkan ka salaamayaa dhammaan abtiyaashada ilma salaad iyo habareyga ku nool Soomaaliya Afrika America Yurub Aasiya dhammaan waxaan leeyahay abtiyaal iyo habar yar kullu caam wa antum bikhayr mid xigta waxaan ka salaamayaa asxaabtayda oo kale Yusuf oo ku nool Mareykan Cabdicasiis Ali Ibrahim oo ku nool Sweden Norway waxaan halka ka salaamayaa oo lagu magacaabo salaamayaa saaxiibadeyda qaaliga ee marna walaasheeda oo halkan garabkayga taagan oo la yiraahdo Binti Cabdullaahi oo ku magac dheer Binti America waxaan leeyahay Binti kullu caam wa antum bikhayr ciideeda kale bashbashi barwaaqo halkan waxaan kaloo ka salaamayaa walaalahayga oo abtiyaashay dhalan oo igula nool Qaahira gaar ahaan xaafadda Ardulo waxaan leeyahay abayaal kullu caam wa antum bikhayr insha Allah ciideeda kale waxaan rajeynayaa bashbashi barwaaqo magacayga Binti binti halkan ka salaamay waxaan halkan ka salaamayaa abaayadeyda qaaliga oo ku nool wadanka Mareykan iyo waxaan kaloo halkan ka salaamayaa adeerkayga qaaliga oo ku nool wadanka Canada iyo walaalahay kulligooda waxaan kaloo halkan ka salaamayaa hooyaday macaan oo ku nool wadanka Yemen iyo waxaan kaloo halkan ka salaamayaa abaayaday oo ku nool wadanka Yemen kulligooda waxaan idin leeyahay ciidan ku gaara السلام عليكم أنا مجاي محمد صالح نور فنان كقاهرة وهالك أنك سلام يا فملك كل جوجا يوروب
soomaaliya meel walbay joogaan asxaabteeda reer baalos meel walbay joogaan halkan waxaan ka salaamayaa xaaskayga xalaasha ah xaawalul waxaan halkan kale ka salaamayaa maamadayda oo ubad ii dhashay maamo farxiyo furtuun asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaaliya meel walbay joogto waxaan u rajaynayaa nabad kullu sanna wa antum dayibun bismillaahi raxmaani raxiim magacay way ballaarey mukhtaar madayra lehre way miilanka salaamay qaraabaday dhammaan meel kasoo wada rugaan oo ku rugan meel rays qaarjo sacuudi arabiya khaasaan reer arbaakoy walaalay khadiije iyo way kale ka salaamay dhammaan qaraabada antana way kale ka sii salaamay qaraabada ay ku wada nool baydhabo dhammaan reer baydhabo dhan wada salaamay guud ahaan aawkay iyo aade iyo familkan dhammaantood ka salaamay way kale meelan ka salaamay qaraabada ay ku wada nool Australia kulisho salaame ee asxaabtay reer qaahir dhan wada salaamahay oo saaxiibkay kamid yahay marka insha Allah dhammaan meel rays Soomaaliyeed noo meelan ka salaame marka eediyada siin salaamay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan ku sugan ciyaartooyda qaranka Soomaaliyeed ee juniorka malal magaca Cabdulcasiis Maxamed Ciise walal adigana Cabdiwaab Maxamed Ali Xasan Axmed Maxamed adinku ka faa'iideysanaya barnaamijka fursadda ciida ee maanta aydan siisay shabakada warbaahinta Daynile iyo Axmal Cadde halkan yaa ka salaamaysa والله ugu horeynta horta ciid wanaagsan muslimiinta oo dhan meeshan waa ka salaamayna gaar ahaan qoyskayga hadda u soo jeesto hooyadii adduunka ugu jeclaa wallahi xaawo nuur maxamed walaashay fayd daahir walaalkii bashiir ilmaha abtiga oo ahay kunti intii yani taqaanto fiiskayga dham taqaanto oo salaamaya ciid wanaagsan meel walbaan joognano aad iyo aad aan igu soo hambalyeynayna assalaamu calaykum hay walaal adigana halka ka salaamaysa adigoo fursadan ciida qaaliga ee ku siisay shabakada warbaahinta Daynile iyo Axmal Cadde halkan ayaa ka salaamaysa waxaan kullu caam wa antum bil khayr muslimiinta oo dhan dunida ku nool maanta